Former Deputy Minister. Hello, sir. Welcome. waxaana la jooga oo galabta soo gaaray magaalada Muqdisho wafdi oo hogaaminaya wasiirka difaaca ee Turkiga mudane Hulusi Akar iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Turkiga sida ciidamada badda dhulka iyo cirka wafdigu waxa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan gaar ah la yeeshay wasiirka difaaca waxaana ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee taariikhiga ah ee qotada dheer ee walaaltinimo ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya wafdiga waxaa qaabilay sidoo kale madaxtooyada ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ugu sareysay ciidamadeena waxaan rajaynaynaa insha Allah in wada hadalladooda ilaa berri ay sii socon doonaan ayna ka wada hadli doonaan qaabkii loo horumarin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac